الله إلهي بريان قولي وابا خالي إلا وحي سالو إذا كريستيك يا ربي وأنت إلهي ما بري إلهي ودعي سنة يا إلهي ما أنت ونقص فرحية مالك كلامه ماما كركريو السلام عليكم. عليكم السلام هايو ماما سيتها حالداد كورن ويا وان wanaagsan oo magacayga yaa ku sheegay ماما xogtay waan hayaa oo gurigaagan rabay oo guri kiraan doonayay xogtaadan waan hay hooyo gurigaagan rabaaya maamo hooyo gurigaygu wuu banaan yahay ha kira waan u doonayaa maama gurigaagan rabnaa labada qol iyo barandada haday banaan yihiin ha laba qol iyo barando hooyo way banaan yihiin hooyo waa imisa marka ma lacagtooda nama ku badiya talo haye waan ku dalaxay hooyo waxa weeyaan 250 weeyaan hooyo 250 bes besa 250 Soomaa ha hooyo 250 maamo 5 baan kaaga dhigaa shana 5 hooyo ma iska hutaa waan hubaa dee bilo badan baan doonayaa in la ii qadimo maamo 3 bil waan ku hormarinayaa waxaan rabaa inaan liisoo gelin oo gurigeyga uu xor iyo hadaan rabaa maya xaafadayadu waa amaan waxa weeye guriga adiga xor waa anigu markaa aad lacagta saa iigu shubto furayaasha saa kuugu shubo ayaa isku kaaya dambaysa adaa gurigaaga xor waa maamo lambarkaa ii sheeg ma lambarkayga ii sheeg oo ya lambarkaygu waxay weey lacagtu fara badan waxa weeye lambarkaygu dee waa 9 yahu lambarka iska sax yaa ma wareertay maanta maxaan kuu sheegay hooyo lambarka soo maaha naayaha lacagtu way wareerisay waxa weeye hooyo waa 7 weeye yahu weligay xataa ma maqal lambarka warqad igu soo qor lacagta iska qaldina maamo hooyo haddaan telefoonka kuu dhiibo hooyo heedha lambarkayga maad la soo bixi karaysaa waan la soo bixi karaa allaylo waadan beerka u dhimay anigu shanqadha un baan hooyo maqlaayo meesha lacagtana ku jirtana waan gartaa inta kalase hooyo ma garanayo adigu geliyo shanqadha una maqashii shanqarta ka fiir waa kuu dir maamo way soo dhacday hooyo waan eegaya ikal ma wuxuu fara badan bismillaahi raxmaan hooyo way soo dhacday si wacan hooyo furihiina waa kan hooyo furihiina waa kan yaa dabaq baaban ka dhigaya guriga ha kor dhowaan bedelaya dabaq baan ka dhigay maamo 3 bilood lacagteeda waan kuu diray 250 aan ku heshiin 5 aan kaaga dhigay sallallahu haye hooyo haye oo yarkana muxuu ahaa alla bisiga oo kaligaabaan hooyo kugu qabeeyay imisaati warbal ukaadi hooyo waxba haray hooyo guryaha lama kireeyo la'aantooda tabeelayaasha la'aantooda oo xaafadda tabeelaheeda ma soo marteen wax dhan waa soo arkay hooyo oo yani wada soo sheegteen waxaas annaga soo dhamaysanayno adiga guriga kaliya nagu wareeji guriga kaliya inta kale waad soo dhamayseen waa soo dhamaysanay wax ka imanaya ma jiraan maya hayo hooyo liibaan haye socda bisika naayaha kuwananba waan kuwan ku hodmilaha ama waan ku halaagsan maxay yiraahdeen oo waaba ilmo yaro hooyo kaalay hooyo liibaan kaalay hooyo kaalay inna lillahi wa inna ilayhi waa bedelaya guriga dabaq baan ka dhisanay يسوني اسكو تاغن لaba saacadood baan taagtay noorta mid waalanta inaad warnawada war nabadgeliye war waa khayr ma hadaysanniyo ma sha Allah wallah war haade maanta arrin baan ku wadaa arrin weyn oo meesha leeyahay baan ku wadaa qoladan inala jaar ka maartay islaantan jaarkeena gurigeeda iyo dad aanan garanayn ba kreesto ku jira deetana dadka inaynu ka hawl gallo oo ay dawladda la socodsiinaan doonayo ciidanka inuu hawsha la socodsiino mid caadi hayn tamee wana xaabadaha guliyada markaa
waayo min mas'uuliyad naga saarnay waa shuwa magaalo ee wala saddex maraya dhexmar oo xoolaad tahay badaha qaar hana gelin waraada wan xoolaad horta war maxaad la gelinaysaa stage ma anu dawladda baan marka maxaad igu sheegaysaa aniga war ma dawladda dhan lagu sheegaya ha dawlad baa tahay dawladda lagu sheegaya waya aniga ii dirsay anu mashquul ordoo nabad sugidaha oo magaalada geey anu dadka kale sheegaysid anu boolis baana inta labaad anigu anigu malaha balaayaba qabanaysaa amaankaaga sugaysaa markaad ammaankii adigu qayb ka noqoto wixii jaarkaaga iyo suuqa waxaad ku aragtiyo wixii aad aragtad ka shakido nimanku maxay wadaan baad shaki geliya aad ciidanka la socodsiiso maxay wadaan baad nimanku markaa waan ka shakiyeenay oo habeenkii bay soo galaan guriga markaa may soo qabanaa ma ciidanka u sheegaynaa waayahay waxaan ka baqaynaa badna gelisid inaad maalin hore aad badna gelisay ilaahaaga ma taqaanaa balna mari waaye war badku gelin maayo waa ciidanka la gudanayna dawladda qayb baynu ka nahay dawladdu inaga dawlad nagu tahay inaga nagu dhisan tahay sidii aynu la shaqeyno oo bay dawladnimaduna noqonaysaa waa war dhamaaday weeye inoogi ina mari ya inoogi sidan isimaha si ummad lagu eegan karana maaha hobiyo wan hobiyo tu dhaqsay soo gaadh wanaagsan السلام عليكم عليكم السلام تلي بلورن nabad weey hawl baan ku wadnay taliya waa garta xaafad jaarkayga ayaanu ka shakina haye waxaa ku jira dad aanan garanayn maxay ahaayeen hal waqti bay guriga soo galaan xilliga ay soo galaan xilligiisana oo ka baxaan xilli bay soo galaan xilligoodana ka baxaan marka waanu ka shakinay sidaa darteed baanu isnir laamaha ammaanka la wadaaga in yar halkay istaaga idinkoo raalli ah hobiyo wan hobiyo tu way wanaagsan degdeg adiga iyo ciidamadaadiba soo degdeg ii soo gaadha roger digtoonow safka gala waxaa la soo sheegay nimankii odayaasha ahaa guriha ay ku jiraan wax walba ay ku urursadeen si dhaqso ah ayaynu doonaynaa inaynu u soo qabanno kaalay noogu celi warkaagii guriga niman baa ku jira waa garta waxa weeye xilligiisii soo baxaan xilligiisa marka hore guriga islaan qura deganayd haye marka guriguna laba guri baa noo dhaxeeya waa garta taliya waa sidaas hawjiina ka qabsada waajibkayga waa ka qabsanaynaa laakiin guriga inaad na tustid baan u baahannahay ciidankana aad dusha ka tustid gurigu wuxuu ku yaalaa halkan iskoyska dabka dabadiisa iskoyska dabka dabadiisa dukaanka weyn buu ka soo horjeedaa dukaanka maxaa ku qoran magaciisa waxaa ku qoran London shop dib istaag amar waa gelaynaa waynu soo hubinaynaa dalka haddaan shacabku inala shaqayn kari mayno hawshiisa nin walba ha fushado qorigiisa xiniya ha geeyo shacabkaynu dagaalmayna dib jeesa alaabta noo dhig dhagoolka amar sii gadaal dambe ha tago okay taliya
beerka u jiifiya beerka u jiifiya salka dhulka u dhiga gurigan ciddii lahayd meeday gurigan ciddii lahayd ee kiraysa guriga lahaa mee waynaynu helnaa gurigan ciddii lahayd annaga ee afka noo taagtaagaya warheedhe waa maxay sida tani waxba waan garan laanahay xaggee bay wax ka socdaan reerka dhanaan garaad ku ahay wax baryaha kan iyo imaanee ma haye see wax loo wada garan waaye anigu war waa sida xaajadani ma garanayna annaga adeer ma fahmayo halkani ha ma fahmayo war iyo wacaal nooma haysid nagama warqabtid maxaa ku daaray say wax kaa yihiin yaa weligaa jawjo baad noola timaada maxaa iminkana sidaa garaadkii beesha waa tahay odagii reerkana waa tahay wiilkii iyo gabadhii iyo islaantii midna meel kuma sheegtay wiilkii waa la watay kee baa la watay wiilkii faarax ahaa faaraxa naa faaraxa miyaad naxday faaraxa ma kii yaraaye masaajidka mu'adinka ka ahaa ee tafsiirkana ka raacanaya aqalka iyo masjidka meelaan hanaad ma shabaab laga dhigay kaas weeyaan waanay noqonayn alliya anay leedahay orodoo reerka qabo anaa inanka ka daba tegayo xildhibaanka raadinaya ugu ogahay waa yahay orodoo iska tag reerkaaga aad faarax baa la xiray wax soconaya ma ahan inankaygii yaraa ee masjidka iyo kitaabka waxaan ahayn aan garanayna shabaab laga dhigo adeer waa la suurad xumaynayaa waanay dhacaynin adaysa leedahay talow meeye waqti baa igu socday meeye talow garaadkii suudaanka la ballansanaa xaguu jiraa miyaanu joogin talow xildhibaan assalaamu calaykum calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu suldaan waa wanaagsan iska war adeer anuu dhiilaan sidaa inankayga yaraaye faaraxa ee masaajidkana mu'adinka ka ahaa tafsiirkana ka raacanayay ee aqalka iyo masaajidka meelahan aan tegi jirin baa la suurad xumeeyo shabaab laga yeelo la xiray inankii baan doonaya adeer inaad soo qabato suldaan waan kuu sheegaya waa hadal wanaagsan waqtina way igu socdaa waqti wuu igu yar yahay shirar badan baan gelayaa waxay Soomaalidu ku mahmahdaa muddo maalin ka yar iyo marti nin ka yar midna lama arag waxaan ka codsanayaa suldaan arrinta baaritaan baan ku soo sii dembiga horta ma galay oo inankaagu gacanta ma ku hayso ma kula joogay oo ma aha dadka dee guriga kula jooga mise gacanta faraha kuma hayso halka horta igu noqo naw war maxaad ku hadlaysaa war ma inanka yar gudub masaajidkii u dhaxay gurigayga adiga ma ka waraysaa marna guriga ma reerkayga adiga warramaysaa aniga adiga warbixinaysaa waa taas oo maaha si alla ku gal adiga suldaan waxaad yeelaysaa waqtiisii baaritaan baan ku soo samaynayaa insha Allah arrintaas markaasaynu gelaynaa laakiin muddo maalin ay sii qura adeer ana gacanteeda ku soo soo mugid soo ana xildhibaan ka soo dhig soo mugid adeer inankii baan kaa doonayaa war kale ay marayaan ma lahan mana noqon karo shabaab suldaan maqal suldaan war dhegeyso ma anigoo garaadkii beesha ayaad ii oranaysaa qof kale intaan ka wardoonaya oo kayga beenaynaysaa suldaan maqal war waxay maraya maahan suldaan maqal horta isteeji waqti baa igu socda shir baan gelayaa waqtiisii baan ku war dadkayga baan maqasho isku tijiya waa dhammayna waqtiisii baaritaan baan samaynaya maqlaysaa gidaarada wararka aan ka maqli mari mayso suldaananta baaritaan baan ku soo wiilkii baan kaa doonayaa ka bacdi baynu gelaynaa والله nimankii odayaasha si fiican baa loo galay dad shacabku nala shaqeynay xagee ma shacabku dawladda la shaqeyso Soomaaliya yaa
maxay ahayd maamadan aad wadaa adinka hooyo ii yeeray maamadani maxay ahayd kaale bal waa maamadii guriga kareysay maamadii gurigii nimanka laga soo qabtay kareysay baa waa iyadii bal warayso kaale maama kaale magacaa ma anigu ha oo ya karkariyaa la yidhaa haddaba si wanaagsan baa lagu karkarinayaa laftaade yaa si wanaagsan baa lagu karkarinayaa nimankan aad guriga ka karaysay nimankaad guriga ka karaysay nimankan aqoon ma u leedahay horta ninkan inankan ha waayo carruurtii magaalada haa inankan waa garanayaa waa garanaysaa ha guriga adaa ka kareeyey miya haa hooyo anaa ka kireeyey daba waxaan kuu sheegayaa guriga imika laga bilaabo dawladdaa la wareegtay marka ku xigtana waad xidhan tahay iyakuna waa dacas ilaa kibrid baa lagu shidayaa iyakiiyo hooyadood digtoonow kaxaya xasbiga dhexe